daawada soo dhawow weli ma aragtay masama maqashay afartan caado oo midba midka kale ka cajiibsan yahay dhaqanka koowaad waxaa laga isticmaalaa waddanka Germany waxaana la yiraahdaa Boltrabahn custom dhaqankani waxaa la isticmaalaa marka aroos dhacayo labada aruuska iyo aruusada qaraabadooda ayaa hal meel isugu yimaadeen tusaale arooska weyn dhicin kadib waxaa la sameeyaa waxaa la burburiyaa dhammaan agabkii alaabihi ay wax ku cuneen kadib alaabta waxaa hagaajinaya oo meesha nadiifinaya labada lamaane Germanigu waxay sidaa u sameeyaan in labada lamaane ay bartaan hadda markay gurigooda dib ka yimaado ama caruur ay helaan oo alaab qasiya dib yimaado sida waxa la lahaayeen waa dhaqan aad cajiib ah dhaqanka kale aad iyo aad kala yaab kula waxa weeye waa dhaqan laga isticmaalo waddanka Venezuela dhaqankani waxa weeye waa Venezuela qabiilada qaar waxay isticmaalaan qofka markuu dhinto lafihiisa intay gubaan ay maraq ka sameeyaan waxay aaminsan yihiin qofka markuu dhinto sidan loo sameeyo in geerida kadib nabad iyo xasilooni iyo naxariis uu la helayo waa dhaqan runtii aad iyo aad la yaab u leh qof dhintay oo lafihiisa la gubayo kadibna maraq laga sameeynayo dhaqanka kale ee saddexaad waxa weeye waddanka South Korea sidaynu naqaan ciyaalku markay iskuulka la dhiganayo ama waxbarashada la joogo qalinka guduudka ee casaanka ay aad u muhiim u yahay oo waxa lagu qortaa ama lagu calaamadsatay talada iyo ciwaanada casharada laakiin ilmaha South Korea jooga lama ogola inuu isticmaalo qalinka guduudka sababtuna waxa weeye South Korea qalinka guduudka kaliya waxa loo isticmaalaa in lagu diiwaangeliyo ama lagu qoro magacyada dadka dhintay ama geeriyooday sida ajligeed sida caadiyana in loo isticmaalo qalinka guduudka ay waddanka South Korea waa ka mamnuuc dhaqanka kale ee afraad waa dhaqan aad iyo aad cajiib u ah runtiina dhaqan wanaagsan marka dhan laga fiiriyo waa dhaqan laga isticmaalo waddanka Brazil qofka Brazilianka markuu shaqada aadayo hore wuxuu sii qaadanayaa cadagiisa iyo dawadiisa shaqada markay Brazilianku joogaan waxay ku khasban yihiin oo dhaqan u ah in ay cadaydaan intay shaqada ku jiraan mar